ورحمة الله وبركاته. سوري هذا خيارات قيمة قاية وعن مركزتا يميل كستا أجوبتا ولكن عقدها ودب إذا كنتوا نقول سوق عفمات قضاء إذا كنا عفمات قبتنا في لكم تقرح بدن أسوق الدنتان. سوري هذا أصحابتا فضلا جنال كمركز ورا سبسكرايب صار لايك نشير قري ولو ذاك أصحابتا هذا سي أي يقولون نوقف صبيران أو أي النقدان أصحابتا نوقف حيران لا سعت جنال كان برنامج هذا أنا هل كان سوق لنا سي يقولون نقدان قوة هلا أنا كنا يرجلين نوقف نقطة سيدي أنا تقنا الهراء وصالحين وحليات أشياء عبيسان أما نسينا الليدين إن برنامج هذا معناها وقت كوقاتان وشيء كوعبتان سي يقولون نقدان قوة أنا هل كان يسوق لنا أصحابتا أدبت وما سنتين ما أنت هانتي waxaan booqasho ku aaday duleedka magaalada Muqdisho ayaan booqasho ku aaday maasha Allah halkaasi waxaan kula kulmay dhul qurux badan oo aad moodayso roobku intuu ku da'ay nadaafada iyo quruxda ka muuqata dhulkaasi oo idinkuba aad yaabaysaan sida hadaba aad shaashada ka arkaysaan run ahaantii anigu aad baan ugu bogiba dhulkan run ahaantii markay ka cagadaab ahaan gudaha magaalada aan ka soo baxay oo halkan aan imaaday waxaan dareemay neecaw gudub caraf badan oo sida ay badda ugu imaatay run ahaantii waxaan dhihi karaa dadka sidaas hadda xaafadan aad arkaysaan sida hadda guryahaas aad arkaysaan dadka degan waxay ka caafimaad fiican yihiin dadka kale ee gudaha magaalada Muqdisho ku nool oo guryaha isku raranta ah isa saaran aan ma taqaana hawada iyadoo aan macnaha aan sida ay hawada uga macnaha badda uga imaatay aysan ku soo gaareynin oo meelo far badan ay soo marayso maasha Allah asxaabta halkaasi waxaan maanta aan u booqday oo meesha isku aragnay Ali Macaash official oo aad wadagnaysa Ali Macaash waa taqaanina jeclahay waa youtuber Soomaaliyeed oo ma taqaana kamid ah youtuberada reer Muqdisho kuwoodii maasha Allah ugu fiican aan dhihi karaa halkaasi waxaan kula kulmay Ali Macaash oo aan taqaanaa oo ah youtuberada Muqdisho youtuber kamid ah halkaasi marka maasha Allah Ali Macaash soo dhawow team Cagadaab show iyo maanta maasha Allah xaafadiyo kugu soo booqday ahaantii jawi qurux badan ayaa degantiin wadoohay kaamirada gadaasheeda ka hadlooya dadka laakiin way yaabayn dada qaar ka siinaa jiro wajigeeya tusinaa yo bum waa kan Ali Macaash ta ka siinaa iska baro cagadaab bilin waa kan raaxaysan oo maanta wax ku duway maasha Allah jawigan macaan waa wallahi billahi xaafadaada maasha Allah xaleeday waa xaafad yani caafimaad leh waaye doog iyo waxyaabo badan marka aragto run ahaantii waxaan soo xasuusanayaa meelaha dalxiiska loo tago ayaa soo xasuusanayaa marka Ali Macaash team Cagadaab show kow iyo laba maxaa leedahay Cagadaab show dhamaantiina waa ay wada maasanyiin waxaan leeyahay Cagadaab waa ka dheeray intuu egay intaasna kaftana iska aheyd saaxiibkiina aan u wareejina wuxuu niyahay iyo wixii kale idinku waay bum Ali Macaash waxaan ku soo booqday xaafadiisa oo ka degan yahay gobolka Banaadir oo ku taala meelo adiib Muqdisho kamid ah ayaan ku soo booqday oo qurux badan oo dhir iyo adduun maasha Allah marka asxaabta waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo sida qurux badan ee aad noo daawataan aad ma taqaanaa subscribe iyo comment iyo qurux badan aad noogu soo qortaan maasha Allah aad aan ugu faraxsanahay ugu dambeyn waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rabaa halkan inaan talo ugu diro iyo xogaa yar oo dhalinyarada Soomaaliyeed bariyahan social media isla dhex socday hal joojiyaan dhihi lahaa ma aqaana gabar Soomaaliyeed oo midda filmaan qalad laga qabtay ayaa bariyahan aad u shidnaay iyaduna waxaan leeyahay gabdhuhu wayna dhaleen wayna la dhasheen mar walbana waan dhahaa wayna noo dhaxaan waliba sumcadooda iyo karaamadooda hal ilaaliyo sida idinka dhalinyarada ah oo ragga ah ee aad sumcadiina u jeceshiin ayay gabdhuhuna laba jibaar sumcadooda in la ilaaliyo ay ku wanaagsan tahay marka waxaan ku leeyahay social media waa lagu wada jiraa fiidiyoyada qaldan yaa la iska qabanin oo haddana yaa la isku dhibaateyn fiidiyo qaldan inta la iska qabto oo haddana la isku dhibaateey runaatii aad u dhibadayda adoo ogeyn haddii fiidiyo laga qabtana oo yani meel ay ku kulansan tahay intuu Ilaahay koonka keenay ay ku kulansan tahay oo fiidiyowgaaga qaldanaa la geliyeen run ahaantii waa wax aad uga xumaado
waxaan leeyahay gabadhaas waa laga qaldamay anigu gabadha aqoon gaar u maleeyay laakiin social media isku wada yaqaanaa iyaduna waxaan leeyahay haniye jabin hore u soco inta aad sumcadaada iyo karaamadaada ilaalin kartana ilaali cuyuuni waad mahadsan tahay anigu intaas macnaha garashadaydu tahay haddii la yahay daayirta maanta jirto waxaa fiican wanaag aan ka wada shaqeyna dalkeena wuu burbursan yahay sida aan dalkeena sida aan u horumarin lahayn oo aan mataqaana u gaari lahayn dalalka horumaray aan ka shaqeyno jiilka maanta dalka maamul lahay aqli iyo garaad aqli iyo garaad haddii la dhaho jiilka maanta dalka maamul lahay aan nahay oo dalka leh marka aan hore u soconno sidii dalkeena aan ku horumarsan lahayn dalkeena aan galno insha Allah tacaala waad mahadsantiin oo walaalkiina idin leh tan iyo kulanti damba tan iyo kulan dhanka kaamirada waad mahadsantiin dhanka kaamirada waxaan u mahadcelinayaa Calmacaash oo dhanka kaamirada ii fadhiyo aad buu u mahadsan yahay channelka hala booqdo subscribe hala saaro waad mahadsantiin asxaabta waa walaalkiina idin leh safarka gaabnaay aan ku gaarnay duleedka magaalada Muqdisho maanta intaas ayuu noogu egyahay tan iyo kulanti damba